arrimaha guriga dumiye waxa kamid ah qolka hurdada baynu bixin nabiga kaleey salaatu wasalaam baynu kiisi tilmaamaynaa mid gaar ah inagu aynu samaysanay maaha waxay dadka arintan daraaseeya boqolkii in 60 ka badan 60 in ka badan wuxuu gurigu ka dumaa qolka hurdada waxa laga yaabaa in dad badani aanay dareenka samaynin laakiin marka la sharaxo ee gurigii nabiga ee keenalis barbar dhigo baynu garanaynaa nabiga kaleey salaatu wasalaam gurigiisa isaga iyo xaasaskiisu waxay ahaayeen sidii laba caruur oo kale aniga waxay ahaayeen laba say wada ciyaarayaan ama ay u wada joogan qolkani waa qol horta ay boqoradu iska leeyihiin boqoradii guriga iyo boqorkii guriga iska leh hatta caruurteena la yeelin waqtiyada qaar mamnuuc salaada cishaa kadib duhurka kadib subaxa ka hor ayad quraan suuratu nuur ma galayaan thalath awraat lakum waayo saddexdan cid gaara iska leh hawshan wadata oo qolkan iska leh waxa la mid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam sida uu u jeclaa ama wanaag iyo mubaasharo uga dhaxaysay haweenka waxa inoo soo guuriyay inoo sheegay hooyooyinkeen ummahatul muuminiin ay tilmaamaysaa ahadu ummahatul muuminiin anigii nabigu waxaanu ku wada meedhanaynay weel qura jafna waa foosto gobolo waa shay afka ka go'an waliba wada meedhasho kaliya ma ahayne waanu ku ciyaaraynay waa markaygii ninka Soomaalida leeyahay xaajiyadu ha ku maydho waxa laga yaabaa in dee uu ku dhirbaaxaba laga yaabo inuu arko dhaqan qaldan waayo isagu dhaqankeeni gal jiray hore baynu iska haysanaayo aynu kala ardaabu iska lahaa ninku gabadhuna guriga iska lahayd guriba kama u dhaxayn laakiin nabiga kaleey salaatu wasalaam xaasaskiisu laxaafin waahid shay qori ku wada saxanayeen wadaqan aad u wanaagsan oo nabiga laga daynay kaleey salaatu wasalaam laba inaga dhaqankeenu wuxuu ahaa marka la isguursado in ubad la dhalo wax kale oo ubad ka sokeeya mug jirin nabiga kaleey salaatu wasalaamna waa ogtihiino laba dumar oo kaliya ubad u dhalay maariyatul qibdiyo ibraahim oo qoro u dhashay iyo khadiijo inta kale u dhashay todobadii dumar ee kale Soomaalidu hadii caruur dhaliwada gabadha iska furaya way aimka u socdaaba waxay heeduna caruur dhasho caruurta hadii dhaliwada marka maxaa waxba ma jiraan la golana yaabi maayo war gabadha maxaad u furtay de wallahi waxaanu is qabanay intaas oo sanadoodo caruur imay dhalin waa laga ilaahay faraj uga siiyaduna ay caruur kale ilaahay siiyo laakiin waa qalad xigmada u fiirso todoba dumar aan rasuulku waxba u dhalin nabiguna kaleey salaatu wasalaam mid walba habeenkeeda waa la joogay warka in la fahmo inaanay dhasho kaliya gurigan u dhisnayn ee uu dhisan yahay wanaag iyo kalgacal in gurigan laga abuuro kuna dhisnaado hadaynu hore uga socono nabiga kaleey salaatu wasalaam ahadu ummahatul muuminiin waxay leedahay yubashiruni wa ana hayd nabigu wuxuu ila mubaasharoonaya ama ila farka ciyaarayay aniga oo caadadii wata waa arin aad iyo aad u cajiib ah Soomaalida waxa laga yaabaa inay ku adag tahay laakiin waxay yiraahdeen culimadu nafsigu ama nimanka arimahan cidda baadhay culimada ay rag iyo dumarba waa arin aad iyo aad u cajiib ah laba shay bay dareemaysaa gabadhu waa marka koowaad waa xanuunsanaysay oo waynu ognahay qul wa adan fa'tazilu nisaa fil mahid way xanuunsanaysay xanuunkii uu ka yaraanaya laba moralkeedii boqolkiiba boqol buu sare u kacaya walimaada waxay dareemaysaa inay tahay gabadh la danaynayo haddaba markay iyadoo xilligan ku jirta la daneeyay xilligii kala ka waran nabiga kaleey salaatu wasalaam hatta isagoo saxaabada la socda ayuu intuu kala haro Aisha ayuu oranayay waxma iska celinaysaa meel tartamaysaa markaasay ku tiri way ina yar bay markaa ahayd way la tartantay big way ka dheeraysay waayay buuri muu cadhoonay waa laga dheeriyay barigi dambu isna la eegtayo iyadoo yara naxday oo culus ayuu ku yiri maanta waxma iska celinaysaa saxaabadu si socoto la yar haraya mugti faydo ay diyaar garow wala tartamay uu ka dheereeyay Aisha yara hadasho wuxuu deetii hore u qaaday buu ku yiri
سطور صوما وهذه قد يري أذوق به أنا تنقل ويعني حتى ولا عياريا نكيا قبل يسلا ترتمي أما قبل ما أقولان سأنا ما ترتنا طول هذه اللي لا ترتم على جابين التوارد نجت نكون أنا أورانين ببالغ يابا لكن محا كشرة حكمت بها كشرة تا يسوع دوان شها قويس كإن لا عليه وحلا مذا مركي إنه أنت أكتر كذا وجذبناه حديث بدن يا آيات بدن أون تفسير كودا دتك الله وشرحهم ومهم إن أرمها مهم كأ قويس كوضع الحياة لا بدأ يقف بود اللي يهين إن لفهمه سيقول كان يوهجاجو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كحكوت المامية قف كم حال جابورا مركز إلهي سبحانه وتعالى وحوري من ماء ذافق يخرج من بين الصلب والترائب بيو بودية أو إلهي سبحانه وتعالى كإيمان يدبر هذا الرجع يكلحمها دمرك على جاي تفسير كا مركز الله فسره إنسان سون لقول دافو لكن حكمة دكتور شرطان لا شرح ومهم هوينك علماء دمرك وحود جاية إن يشرحها سفي عنه شرحان كل إرادان ويوحى لقيه برجو إن يدل مران وأنا يدادين وحلا من الحديث كصحيح يا رسولك عليه الصلاة والسلام قبل وتمي يضع هو ينكي مسلمين تقول جودا وتمي كتير رسولك ويديسي وفرس صحيح علمك وش علاين دمركو ممرنا يان هدي أي رياضان إذا احتلمنا نبي عليه الصلاة والسلام وشيء ليس له ذكرني لكن سوما الله لقينا نين بدن كرنين نبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم إذا رأت الماء ها هذا بيارك تبع رسولك عليه الصلاة والسلام وبيه إلهي سبحانه وتعالى ذاتك كأبوري ما هي رجع قولي ليه هي قبل نعرف دي واحد كتيري عيرت النساء هل النساء ما نادمر كذا عيبين نساء دمركم يليهين وحاد شيء يسوع نبي عليه الصلاة والسلام سيدي كمود دينين أمورني وارنت هذه وعكور ثكلتك أمك فبما الشبه هو يدا كويده هذا محا المها وكوجك هذا ويكفر أحسنت المه دون ويك هذا لكن أرمها إن لقلمه قلا وعليه علماء قبض على هاي دمر كذا عيبي سوى الله بمدون إن يصير ضد بدني بكسمين أنا جرينين بيضبا إن أنا جرينين با أو اعتبار يرى إيوه إن حشونيسي والله هيد محد نبي سؤالها نوع عاصو كلا هو يدينيسا نبي عليه الصلاة والسلام سؤالك هو كأذك بالويدية سيدي هذا هو وجه جوابي ويا مركا أنتم علمي تهاي يا مركا أي تهاي ده إسك هذا التهاي وكلبا شيء والبه هالكيس على دقيقة يا مركا شيء شغل علمي تهاي نبي عليه الصلاة والسلام سعد بوقعدي وين مركا الله لا شرحه ولا دادقه ولا قد عديه ولا بعدة إن بدرين الله شيء قاعد مركا ويرجع واحد لقيه أبا يجو برنامج كذا ويسكا وطن وهدو سوق جديد هدي كلا ويسوق مد هدي لقيه محد أنا ما هو برن ويدي أما هدو شرح ويدي أما غير كوبر هدي لقوله والناس تعرضوا تيجي على تبع ورنايا وارده قبل مال الله أمر يسول الله كفصة يبغى ويدا شاي وحاق ما كفصي وما مركا أرنت هذوي مركا وين لا شرحه رجعنا الله شيء قدو مركنا الله بلاريوي حديث كذا وداد أنا أبحثني إنه أرنت بقرني بحديث كشرح يوعولي إذا رأت الماء سوله جنواه الله سوله مركز سوله وياي هذي بيا يكون مرتاحشوا هم مرتو ويحبوا وكذا شركات بيولوجو مرنايو يعني هو مسألة دي بقى قرني من الله ملوك هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ووفر لها أو شرح لها يجي لها أو سيدا أرنت عصوص عتيجي لها سيدا رقمو شرحين سيدا هيبقوا شرح لها وحولنا هاي أرنكاسي وإن وحيابها بقول كيب اللحظة ريرو كدمان أرنتا بقول يو لحظة كان ريري يمي قارب هذا منقات كاهين تسألك على الذين يا دمرك هذه الشيء مرك أرنتاسي نعضو إلى حشود بكم منايست وحما شيئان بريجو روح ورنشرين وأنا سكجت جاي نكني يمربو أما بريس بان صوت نتمد بورنشرتي لكن من كقارب هذا العلماء ويديا بان أركي ولا قول ككم قناع سني يقولون التليفون بكسو ويدينيان لقما يابين يهوري مادان ولي حشودكم ما شاء الله في عينها لكن واحد لقيني هذان وحنا مصيو بيل مصيو وحنا مصيو هذا رتب بيل هو رجال سنيو حبا غلطان قرض المحكمة دون وبدوانو ويكون يرد ساعات كي صوت دابا
dabeedna saadkii baa la soo daabacay dee biil wuu siiyaa laakiin de haddaad biilka kala garanayn biilku kuu yahay haddaanad garanayn maxkamaday miyaad kala furi uun arrintaa waxaynu ku gebagabaynaynaa waxaynu u baahannahay in la baraarujiyo dowladdana loo sheego hay-adaha la talinta qoysku inay bataan hale wasaaradda qoys baa jirta meel ay qoysaska wax ugu qabanaysa ma arag anugu in la kala furo unbay ayay wadaan maan u maleeya qolada maxkamadaha geeyo wey marka waxaan leenahay waa in taladii qoyska nebigu calayhi salaatu wasalaam la taliyuu ahaa gabadh baa u imanaysay ninkeedii bay lahayd waxa ay waxaas igu sameeyey waxay ku leedahay waa bakhayl abu sufyaan waa bakhayl shaxiix bay lahayd shilin lacagana ma siiyo maxaanu yeellaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku lahaa maalkiisa wax idinku filan ka isticmaal miyaanu maxkamadaha ka wanaagsanayn kala furayo nimanka waxaynu u baahannahay in la helo qolal xafiisyo la furo rag iyo dumarba dad aqoon-yahana baa jira debadaha iyo gudahaba jooga waxa laga yaabaa reerkaa dham inuu talo la siinayey ku burburaba oo haddii taladaa la siin lahaa reerkaasi badbaadi lahaa waxaanu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaalayaasha kale ee la bixinaya waxaa ka mid ah qofku markuu kuu yimaado ninkiiyo gabadho isor fadhiya ha la talinin ninkiiyo gabadhiisa xaaskiisa laysma hor fadhiisiyo tusaale waxaa nebiga gabadha u timi marna ninkaa u yimi waa sax ninku waxaa laga yaabaa runtii buu sheegaya gabadhu markaasi runta sheegaysa haddii say isor fadhiyaan waxaa laga yaabaa inay ama waxba sheegi kari waayaan ama inay been iska sameeyaan laakiin haddaad mid walba gaar ula kulanto waxaa laga yaabaa in xaqiiqadii la helo dawadiina la helo arrintaasi waxaan ku gebagabaynayaa in qoysaska xafiisyo la talineed in loo sameeyo ummadda waayo way burburayaan in 160 reeroo muddo yar ku burburay waa waxa weeyaan waa waddankeena burburaya wey